majlis uu nebigu fadhiyo ayuu nebigu asxaabta sidaa ku yidhi waxaan arkayaa buu nebigu yidhi madaa'in alciraaq ciidankii muslimiinta oo madaa'in alciraaq furtay oo gabadha shimaa bintu buqayla la yidhaah ee boqorka la dhalatay oo masar madow madaxa ku wadata oo baqasheedii fuushan iyo gabdhihii u khidmaynaya in hareeraha ka socdaan ayaa ciidanka muslimiinta gacantooda soo gashoon arkayaa buu rasuulku yidhi khuraym binu fatik saxaabiga la odhan jiray ayaa sare kacoo yidhi nebi allow ciidankaa maalintaa furanaya madaa'in alciraaq haddaan ka mid noqdo gabadha ay iga hor timaaddo gabadha aniga hallay siiyey inta goore goortahay imikadan buu yidhi cajiib markaasuu nebigu yidhi adigaa iska le muxuu yidhi adaa iska le buu yidhi gabadhaas raggii ag fadhiya markiiba eegtay markhaatiyo weyaan mogtahay laba ninoo ag fadhiday buu yidhi waryaada markhaati ka noqdo haddaba arrinkaas bal sida khabarka nebiga ay ugu kalsoon yihiin dadkaasi eega innagana maanta muslimiintu xaya cala salaa kuma kalsoono salaaddii baa la addimayaa suuquna waa macmuur maanta xaya cala alfalaax war liibaanta xaggeega u kaalaya baa la leeyahay salaada liibaan uma arkaye maqaayadda iyo dukaanka uu furan xilligaa ayuu u arkayaa inuu ku liibaanaya xaajadiisa ku daboolayo yaqiinteennu waxay noqotay waxaan arkayno yaqiintoodu waxay hayd hadalka nebiga iyo ilaahay ay ka maqlaan bay ku kalsoonayeen iyagu intaqala nebiyu calayhi salatu wasalaam nebiga adduunyada uu ka intiqaalay saxaabigii arrinkii nebigu maalintaa u ballan qaaday u haystaa abubakar baa taladii ummadda la wareegay khilaafadii cumar ibnu khadaab baa timiday madaa'inulciraaq baa la galay ciidankii madaa'inulciraaq ku jiray buu ka mid ahaa wallaahi waa halkii nebigu sheegayey buuhi waa taa magaaladu nebigu sheegayey ciidanka khaalid baa wata waa la jebiyey gaaladii gabadhow sideediiya faraskii fuushan masarkii nebigu ku sheegay wadata baqal cad bay fuushan tahay masar madow bay wadataa gabdho u khidmaynaya la socda khaalid baa loo keenay saxaabigii baa sare kacoo yidhi yaa khaalid hiya liya buu yidhi tan aniga iskale buu yidhi tan kuma jirta buu yidhi haniimadaad qaybinaysaa tan anaa iskale khaalid baa yaaba see ku yeelatay waryaa ma sunnaha nebigaad khilaafaysaa may tan nebigu aanu ii ballan qaaday buu yidhi goorma maalintii caynkaasuu nebigu ii ballan qaaday wuxuu yidhi kuma siinayo ilaa maragaad la timaadda mooyaane laba nin oo labaduba ay ahaayeen ansaar muxamed baa labadaba la kale odhan jiray labadii nin buu soo kaxeeyey khaalid buu u keenay annagaa ka maraga bay yidhahdeen nebigu inuu ballan qaaday gabadhaas waa hagaaga iska qaaday buu yidhi khalaas khaymadiisii buu la tegey waa gabadh la dhalatay boqor kam gabadha imisay barwaaqaysan tahay walaalkeed cabdulmasiix oo markaas sulxi qaatay oo macal ciidankiisii isdhiibay oo jizyadiina oggolaaday ayaa khaalid u tadarrucoo yidhi khaalidow mar haddaan sulxigii qaadannay gabadha walaasha ee boqoradda ii soo celiyey buu yidhi waxaad doontiina lacag waa nisiine khaalid baa yidhi gabadhaa hortay baa la bixiyo nebigaas ii bixiye ninkaa halkaa jooga ayaa gabadhii qaato halkaabay isagaa la wareege isaga la soo heshii markaasuu u yimiday wuxuu gabadhaasaan la dhashay buuhi boqorkii baan ahay waan isdhiibay gabadhaa ii soo celi lacag waxaa doontana sheego markaasuu fekeray uu fekeray uu fekeray wuxuu yidhi 10 min 100 10 imsa waa imsa 10 de kun shilin de wuxuu 10 min 100 keen buu yidhi lacaga uu yaabay ninkii markaas 10 markaas naam 10 uu yaabay ma 10 min 100 haa 10 min 100 gabadha markaa baan ku siin markiiba uu soo saaray lacagtii buu siiyey gabadhii iyo waxay wadatoo dhan uu ku wareejiyey saxaabadii baa ninkii u timid oo la yidhi lacag intee leeg baad ku furatay gabadha dee 10 min 100 ma 10 min 100 ha waa kun weeyaane xisaabintaa ka badan inay jirto ma baaqaani buuhi anigu xisaabta adduunyada may oqoonin laakiin sida ilaahay wax looga qaatay iyo ku yaqaaneen innaguna maxaa naqaanaa maanta keenna miiga jooga kalkulateer buu ku sitaa jeebadda ka miiga jooga xoolaha leh neefka 70 buu marayaa 35 waa gaadhiga kiradiisii maxay waa ka miiga jooga yaqaan ka miiga jooga yaqaan xisaabta keenna magaalada joogana maxaad u malayn asxaabta rasuulkana xisaab may oqoonin laakiin maxay yaqaaneen iyaku sida ilaahay loo bariyo yaqaaneen sida ilaahay loo raali geliyo yaqaaneen sida ilaahay loogu dhawaado bay yaqaaneen
asbaabta ilaahay u dhawaynaysa bay yaqaaneen asbaabta ilaahay ka fogaynaysa bay yaqaaneen waxa ilaahay raalli ku noqonayay bay yaqaaneen meesha ilaahay raalli ka yahay bay marayeen hadday gacmaha cirka u taagaan ducadooda lama soo celinin iyaka saadarteed muhiimaddu waxa weeyaan adduunyadan ilaahay baana keenay ujeedada laynoo keenay waa inaan adduunyada ka qaadanaa diin dhammaystiran waa inaan garannaa ilaahay maanta intaynu jirnaa nin walba lacag intuu haysto uu garanayaa maanta laakiin inta ilaahay uu jiro ma qiyaasi karayno maanta saxaabada rasuulku way yaqaaneen wallaahi way yaqaaneen way yaqaaneen sacd ibn abi waqaas baa soo galay basra dad meel ku urursan buu arko meel taagan oo nin dhegaysanaya markaa buu sacad ku yidhi maxaad ninka u dhegaysanaysaan muxuu sheegayaa waxaa la yidhi abubakar iyo cumar buu caayaya ya abubakar iyo cumar buu caayo dhegaysanaysaan ha de markaasoo loo baneeyey sacd waryaa buu yidhi maada abubakar iyo cumar caayi kara ha waan caayi waxaabay sameeyeen waxbu iska daldal zindiiq buu ahaa war dadkaas ilaahay baa raalli ka noqday camalka ogina way la tageene ka daa dadka cayda ka dhaaf iska daa cayda war waan caayi oo dhibaatay noo geysteen oo caynkaasoo markaasuu yidhi war cayda waad ka dayn buu yidhi wa ilaa wallaahi haddii kale waan ku habaari buu ka yidhi habaarkayguna dhulka uma dhaca buu yidhi markaasuu yidhi waan ku habaariya uma nebi baa tahay buu yidhi bal habaarkaaga soo sii daa saasuu hadlay sacad bin abi waqaas wuxuu yidhi intuu gacmaha cirka u taagay buuhi ilaahayow ninka abubakar iyo cumar caayaya inaad abubakar iyo cumar raalli ka noqotayna waan raalli baan ka nahay ilaahayow adaa noo sheegay oo nebigaagii baa noo sheegay oo in janno loo bishaareeyey mubashiriin ahaayeen nebigaagii baan dhegahaygaa kaga maqalle jamaca halkaa jooga intay kala dhaqaaqin ilaahu ninka aayad iga tus buu yidhi wuxuu yidhi neef geela oo shilis oo meelay ka timid la garanayn unbaa dhulka sidaa uga soo baxdaa la yidhi dadkii baa sidaa u kala jeexday isagii intay u tagtay sidii harraati ula dhacaysay naftu kamay tegin ilaa naftu ay kaga saartay mooyaane naftii markay gow ka tiri ninkii ayay hashii oroday baa la yidhi waa la daba yaacay geed bay sidaa uga daba wareegtay meelay martayna waa la waayey markaasuu sacad bin abi waqaas yidhi alxamdu lilah ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu yidhi hee dadkaasi iyakoo cuqdad abubakar iyo cumar aan u qaadin intay meesha ka dhaqaaqeen baa ku mahadiyaa buu yidhi leanna aayad bay arkeen khalaas inta ilaahay ay u jiraan iyaku way garanayeen iyaku leanna tarbiyadda nebigay ka qaateen alayh salatu salaam diin bay ka qaateen nebiga diin bay ka dhaxleen ilaahay cilaaqadiisay ka dhaxleen maanta muslimiinta caalamka cilaaqadaasaa nagu yar bas wax kasta muslimiintu maanta way haystaan asbaab caalamka asbaabta u badan maanta muslimiinta haysata cadad ahaana haddii la eega tirada muslimiintu ma yar tahay ma yaro laakiin tayadeennii baa yar maanta saa darteed bay culimmadu leeyihiin ummaddan waxaa loo baahan yahay mar labaad in iimaanka iyo diinta loo jadiidiyo dacwaddu waa laba qaybood dacwad gaalada loogu talagalay waa dacwat lislaam dacwadna muslimiinta loogu talagalay waa dacwat liimaan gaalada dacwadda loogu talagalay waa maxay soo islaama waad nabadgelaysaan dacwada muslimiinta loogu talagalay waa maxay tacaalow nu'min birabbina saaca kaalaya soo gala masaajida ilaahay saacada rumayne saa darteed walaalayaal ilaahay uuna doortay oo diintaasaa ilaahay noo doortay oo muslimiin baa ilaahay naga dhigay ummaddii nebigaa ilaahay naga dhigay tacaalow nu'min birabbina saaca cabdullahi bin rawaxa odhan jiray soo ma saacad ilahay aan rumayna maxay ka dhigan tahay iimaankii waad ku dhalatay islaamnimadu waad ku dhalatay kaalay fadhiiso iimaankii iyo aakhirada ha ka mudaakaroonne hadda saacadda iminkaan wada hadlayna iimaanku inooma ziyaadayo ma ziyaadayo yasdaad xalaqat alcilmi haddaad fadhiisato cilmi iyo iimaan iyo taqwad baa kuu ziyaadaya sidaasoo kale ummadda loo baahan yahay maanta in ummadda iimaanka loo jadiidiyo jadiduu iimaanakum baa nebigu uhi iimaankiina jadiidiya saxaabadu waxay dhahaan kayfa nujadidu see iimaanka loo jadiidiyaa akiruu min qawli
لم يقل نبي ما أورن ذكري وعود قول ومن أحسن قولا قول هذا ما قصوا دعوة أكثر من قول لا إله إلا الله ذاتك إيمانك وجيدا ذاتك آخرة وجيدا ذاتك إلهي وغشكية ذاتك منفعة دينته إليها وغشكية ذاتك عملك صالح وغشكية ذاتك قيمها صلاة إليها وغشكية ما أنت ملك السؤال مرتوح لقوا هذا الهيا ما أنت منفعة دينته إليها سومالي إنك خاص عدان هاي إسلام نمدي قبيل كي متياكتنا باور وين ما أنت يا dadka agtooda midka ku weyn wada muslimna mala arintaas weyn taabatay waa sognahay deedo wada Soomaali dhiga dheer baan ahay ilaana meel aniguna jarmal ma yihiin ninkuma niga madahe فعل كاني حتى wuxuu noqday qabiilada inuu ku ficilto qofka muslim qabiil inuu hadlo qabiil inuu dhaqaalaha u bixiyo qabiilkiisa inuu dacwiyo qabiilkiisa inuu faaniyo حتى مجلس ما درك ساقي بالقبيل الله فردي وضع كنا سلان لماذا الله دواني وحول بينك على وينات نن رين مدينة أي سوق المسجد كي رسول كنا صلى الله عليه وسلم بلال يا سلمان وفردي أبو أركي وعركون محل وجب هاي هيبون هدي طالع هذا القوال اللي دقيسو نكن محمد يولي نكن محمد إيه قوم كيسيبوا هلا هدي طلع عرب أو كعدي كون محل وجب بعيا هدي طالع معاذ بن جبل بامغل هذا الكا هل كاسو معاذ نكي قبتي مركاسو نبي أو كاني مركاسو معاذ ولي بقولش أقول يري نكني صدا بودي رسول الله مركاس النبي وجهك سيب بدل مي منبرك النبي قفولي دتك ودم بالله وذا يري مركاب النبي ودي جيستا أبيهين وآدم عليه السلام هو يدين وحواء لغة عربي قلنا أبي هو يني ما أبو رسولك يري من تكلم بها فهو عربي بالنبي يقول نكن لغة عربي كبرته كه الله وعربي هذا الكامر النبي يقول خطبة دي بوجوجية معاذ بن جبل ولي ننجي صدا أبوها يا مركب سود يا رسول الله نكن محاك يا الله مركب النبي يقول دعه للنار يا معاذ نكن النار تاك فلنا نار تودى أبو رسولك كي وأن المسجد النبي كجوج الله صعب يقول النار تاك فلنا نار تودى maalintii nabigeenu adduunyada ka intiqaalay carabtii ridowday ee diinta ka noqotay ayuu kamid ahaa isagoo murtadala ninkii waa la dilay baa la yidhi ajiib hadalkii nabiga yaa xaqiiqoobay maadaama hadal wuxuu ku hadlay ummadda midnimadeeda kala geynaya oo cunsuriyad iyo qabyaalad abuuraya hadalkaabuu ku mutaystay ninkaas inuu naar ku dambaynayo